qaybtii ka harsanayd wadada aynu bixin doono insha Allah mustaqbalka Hargeysa Ring Road oo ah wadada ku wareegi doonta magaalada Hargeysa waxaanu isticmaali doonaa qalabka imika inaag yaale differential GPS oo ah qalabka saxsinimadiisu ilaa la yiraahdo boqolkiiba 99.9 weeyaan imika xogta aynu isticmaalaynaa waa xog satellite ku jirta ma jiri doonto wax dhinac loo duwayay sida loo survey gareeyo wadadu noqon doonta deegaanna laguma duwi karo dhismana laguma duwi karo laakiin halku khadkaasi maray ma insha Allah mari doonta waxaanu joognaa inaynu calaamadino waxaan jeclahay inaan mahad celiyo dawladda hoose caasimadda Hargeysa dadaalkooga ay ku wadaan inay caasimadooda ka dhigaan magaalada laga dhigo caasimad magaalo u qarantayna caasimad yeelato caasimada waxa loo qeybayaa inta badan kaabayaasha dhaqaale runtii wadadana waxay ka mid tahay kaabayaasha dhaqaale ugu xooggan waxay yeelan doontaa sida halkan u leedahay ilaa 4 roundabout bay leedahay wadadan hore jirtay oo ah qofku markuu doonayo halku kaga baxay wadada in magaalo kale marayna waa roundabout mid kale jira roundabout kala mid kale jira marka insha Allah waxaanu samayn doonaa laftoodan roundabout iyo qofku markuu doonayo magaalada inuu si degdeg ah airportka u gaaro inuu degdeg u gaari karo meel kasto u dhownayn uga bixi karo marka waxaan ku faraxsanahay inay dhammaan shaqadaas inoo qabanayeen dad muwaadiniin ah aqoon-yahano muwaadiniin ah injineero muwaadiniin ah qalabkeenu isticmaalaynaana boqolkiiba boqol inuu noqdo qalabka ay dawladdu leedahay oo wax kira ah aan ku jirin marka laga reebo shidaalada iyo shaqaalaha beerdamka la siinayo taas ayaa sahlaysa inaynu isku tashi ku qabsano lacag ka yar imka $2,000 ayaa mashruuca ku baxaysa laakiin hadaynu amba shirkadaha ajnabi u yeeran lahayn ama inuu yeeran lahayn qalab ajnabiya $100,000 ba ku bixilaa marka Soomaaliland imka wax ku shaqeynayso waa isku tashi qalabkeena iyo aqoonteena iyo dhaqaalaheena yara kooban inay qiimo badan noo sameeyaan runtii dawladda hoose Hargeysa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa sababta hal abuurka iyo fulinta iyo qorshahaba iyaga xagooga inaga timid anagu maadaama nahay wasaaradda hawlaha guud oo xaqii qorsheynta magaalooyinka u qaabilsanaana waanu kula dadaalay hawshaas sidii suurtagal lahayd kullee waxa kale oo la mas'uuliyad kasta oo aad leedahay halka ku dhamaato qof bay ka bilaabantaa systemka dawladnimaduna waxa weeyaan waa hal sel dad waxaan arkay si yar oo qaribeen u hadlayo dawladnimadu iyo xukuumaddu waa isku qofun mas'uuliyaddeedu halka ka bilaabanto ayay mas'uuliyadda qofka kalena ku dhamaata mas'uuliyaddeedu halka ku dhamaato ayay qof kale mas'uuliyaddiisa ka bilaabanta marka wax la yiraahdo dawladnimadu waa hal body oo halka sida qofka jismiga qacantu qacan bay qabataa ishu qacan bay qabataa lugta qacan bay qabataa marka inta badan nidaamka dawladnimada casriga waxa la yiraahdo waa saliskaas ku xirxiran runtii waxa leeyahay dadka ma kastaana waxba dhigeysan mayno wixii horumar inoo soo socdana labada qacmood baan isku geynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.